arrinka aan aadka ugu faraxnay maanta ee ka dhacay golihii wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta maalintii ka horeysay muddo yar oo gaaban u dhaxayso ayaan waxaan halkan ka tirtirsiyay xildhibaanada ka soo baxay degmadan Caynabo ee golaha wakiilada iyo xildhibaanada kaleba kuwaas oo aan u soo jeediyay in darajadii degmada Caynaba oo baarlamaankii hore ay diideen inay mar labaad ansixiyaan maadaama maanta ay u haystaan rag iyo codba ay u haystaan haddii tahay xildhibaanada isku deegaanka yihiin iyo haddii ay tahay xildhibaanadii ay cod ka siiyeen ee xisbiyada isbahaysiga la yiraahdo wadan iyo cid marka hore waxaan leeyahay idinku waa mahadsantihiin haddii tihiin xildhibaanadii reer Caynaba ee degmada gobolka Saraar ka soo baxay iyo haddii tihiin xildhibaanadii aan la soo baxnay ee aan ka soo saarnay ee deegaamada aan ka soo jeedno waxaa tihiin rag gartay mas'uuliyadii saareed iyo mas'uuliyadii gobolkooda ka saareed iyo tii qaran ka saareentaba oo xildhibaanku hadduu garto mas'uuliyadda gaarka u saaran wuxuu garanayaa mas'uuliyadda guud ee caamka ee qaranka ka saaran oo garanaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leenahay xildhibaanadii aan doonayna waa tihiin waana nagu matashaan golaha aad joogtaan waxa la yidhi baarqab geel oo laba qaalmood la siistay dhul wanaagsan inuu dhalaa ku faan maaha shaqadiinni baa garateen xildhibaanada la midka ah ee maanta aan arkay idaacadaha ka hadlayay ee kuwa aan la hadlayno ku jiray ee maantana qoynsimaadka yeeshayna maan fahmin ujeedadooda iyo yacni sida ay wax u dhigeen ama sida ay u fakareen maan fahmin inanba heesto waxay tidhi ninka meel cidhiidhiya ama ay col iyo guluf war ma kaaga carara walle ciidan kuma taro reer Caynabow ragga doorateen ilaahay baa kala saaray ragna raga ka dhigay ragna arkaysan maanta siday ay wax u dhigeen ragga kale ee xildhibaanada ah ee hawsha dabada ka riixayeen abaal iyo ammaanba waan u haynaa abaal badan abaal bara abaal bur iyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedel beerka ka ogsoon reer Caynabana waxa laga doonaya ninka ku xiiraya Caynaba iyo ninka kugu xagaya labada inaad kala fahamto gudoomiyihii ku suntanaa waxqabadka Burco horumarkeeda Ustaad Maxamed Muraade waxa uu la dardaarmay siyaasiyiinta ay isku deegaanka yihiin inaanay ku degdegin go'aan qaadashada halkaas baan kaga baxay siyaasadda maanta dhinacyeenaysa ee qarankan Soomaaliland ee maanta waji iyo maartay aan minjo iyo madaxtoona kala lahayn halka ay maraysana waxaan soo jeedin lahaa deegaamada aan ka soo jeedno degdeg inaanu naf lahayn meeshii marka laga beegi lahaa waxay u baahan tahay in cagta loo dhigaa bay u baahan tahay in aad looga fiirsadaa bay u baahan tahay degdegu naf ma laha jibadu oo haddaad marba meel u jibootana naf male in badan baan aan ku hadlaynay magac xisbi ku hadlaynay ama magac dawladeed ku hadlaynay maanta waxaanu ka midnahay muwaadiniinta reer Burco ee mas'uuliyadana hayn jiray maantana mas'uuliyadda shakhsiga ay saaran tahay dadkood iyo deegaamada ay ka soo jeedaan ku matali karaya marba halka ay marayso iyo siyaasaddu sida marba ay u socoto la iskuma saamaxo bahasha siyaasiyiinta maanta iyo Afrikaan dadka joogaana ma kala samraan lixdamaadkii waxa ogeedeen raggii isqardoofay sagaashanaadkii isla soo gaadhay raggii qaaxo ku soo kala karaamo seegay wali geesaha iskula jiraan deegaamada aan ka soo jeedo waxaan u soo jeedinayaa
maanta waxaynu u baahannahay inaynu aada uga fiirsanno waxaynu qaban doonno iyo waxaynu ka yeelayno siyaasadda inagu soo wajahan iyo tan maanta soconaysa ee meel lagaga hagaagaba al'aanka aan lahayn inaynu aada uga fiirsanno. arrinkaa waxaan uga jeedaa warbaahintan waxaan ku arkayaa warar kala nooc oo iska soo horjeeda oo midba mid uu dabrayo. hadda ninka siyaasiga ahna meesha ku soo socda waa dadkeennaa shicibka ah ee codbixiyayaasha ayuu ku soo socdaa. inaan tale ka sii geysanana xaq baan u leenno. ninka siyaasiga ee maanta isagu isu dhuuriyeeye halkaa iska mara ee aan tala nagu lahayn ee aan nala tashanin ee xisbigaasaan gelayay halkaasaan maraya midna aan odhan hadhow sidee buu nooga dhaadhicinayaa meesha uu maray. xisbiga doonta ha noqota midna uma jeeda anugu midna maanta u hadli maayo. laakiin waxaan u baahannahay war siyaasiyow dadkaad u imanaysa ee aad codka ka doonayso taageerada ka doonayso horena waan u sheegay anugu dadka taageerada ka doonayso dadka aad ka doonayso hiiliyahooba dadka aad ka doonayso masiirkaaga siyaasadeed iyo meesha aad ku socoto haddaad tii hore joogayso iyo haddaad mid kale u bedelanayso intaba wayna taladaada wax ka siisaa. haddii kale laakiin sida hore u dhacday haddaad halka doonta iska qabato oo hadhowtana anigoo burca iska joogay raggayla midkaa iyo shicibkaa codbixiyayaasha aad u timaado oo aad tira halkaayna mariya dee miyaa lagu raacaya. deegaamada siyaasiyiinta ka soo jeeda iyo salaadiintayada karaamada iyo sharafta le waxaan u soo jeedinayaa intaan tala ina qabsanin aan ka sii tashan.